walaalayaal aan fahamno aan ku cibro qaadano xadiidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam mar walba adduunku nooga waramaa faa'iido daradiisu nooga sheekeeyaan rasuulka wuxuu nooga digaa rasuulka adduunka inuu markaa nasiro inuusan nasirin oo aan ka faa'iidaysano maalmaha aan joogno waa wax lagama maarmaan ah wakhshaw yawman laa yajzi waalidun can waladihi walaa mawluudun huwa jaazin can waalidihi shay'a intaa maxaa lagu daray inna wacda allaahi xaq ilaahay ballantiisu waa dhab ilaahay wuxuu jiday waa dhacayaan laa maxaala ilaahay soo wax u jideeyo u jaangooyay u fulayaan una soconayaan inna wacda allaahi xaq falaa tagurannakum alxayaatu addunya nolosha adduunka idin sirin marka yay idin kedinin buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala walaa yagurannakum billaahi algaruur midka garuurkee dadka sira waa shaytaan midka garuurkee dadka qiyaano waa ibliis midka garuurkee salaada naga waswaasiya oo khayrka naga leexiya oo adduunka noo siineeya oo wixii xunba noo qurxiyo wax fiican nooga dhiga kaana waa ibliise iska ilaaliya buu ilaah leeyahay subxaana wa tacaala walaa yagurannakum billaah war yuu idin dagin yuusan idin sirin garuurka kada badanaha shaydaanka markaa ah hurdada waa kuugu celiyaa oo raaxuu kaaga dhiga subaxii baa soo kacda adoo salaadu ku dhaaftay adoo jajaban awa raaxadaad xalay haysatay waa ma jiro xaloo dhan buu saa kugu celinaayey xaya cala asalaax xaya cala alfalaax baa la lahaa wuxuu ku dhahay calayka leylan tawiil farqud war habeenku waa dheeryahay hurud buu maantoo dhan kugu haayey mar allaala marka salaadu kaa caddaato oo mar allaala wixii khayrka lahaa uu ku dhaafo oo wax allaala wixii rasuulka khayrka ku tilmaamay uu ku seejiyo ayuu kaa tegayaa intuusan kaa teginna labada dhagood intuu kaaga kaadiyo najaasadiisuu kugu daadiyo yuu albaabka ka baxayaa waa inuu habeen dambuu ku leeyahay haddana inaan iska qabana way fiican tahay inaan iska ilaalino waa lagama maarmaan walaa yagurannakum billaahi algaruur yuusan idinka kedinin yuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala calayka leylan tawiila farqud buu leeyahay habeen dheer ma jira meesha war wax dheer malaha addunya saaca adduunku waa hal saac walaalayaal fajcalha taaca ilaahay ka dhigo halkaas saac taaca ilaahay ka dhigo maba ka badnaba hal saacad waxaa laga yaabaa inuu ka yar yahay waa mar allaala marka la fiiriyo ilaahay subxaana wa tacaala sida uu ku tilmaamay haddaba qofka muslimka ah mar allaala markuu iska ilaaliyo shaytaan iyo adduun hawo iyo naf inuu badbaadaa suuragal ah adduunkan aan maantoo dhan u dadaalayno oo subaxiisaan u kacnay hadda aan nimidoo soo hooyanay qaarkeen ay cishahaasay ku tukadaan ay adag tahay qaarkeen maqhribkay inay kacaan ay ku adag tahay sida maantoo dhan adduun loo raadinayay salaad looga tegay indhaheena xaaraan ay fiirinayeen adduunka noocaas ah markuu ku leeyahay shaytaankii habeenku waa dheeryahay ee iska seexo muxuu ku seejiyey 2 rakacadood oo rasuulku uu ku tilmaamay inay ka khayr badan yihiin adduunkii waxa saaran dhammaanteed waxaad maantoo dhan raadinaysay ma aha shilimaadkii inaad dukaanka ka hesha aad raadinaysay ma aha adduunka min dacal ilaa dacal gees ilaa gees kor ilaa hoos intaasoo dhan waxa saaran maxaa ka khayr badan 2 rakacadood buu dhahay nebiga oo salaada fajarka ka hor la tukado weli salaadii subax ma gaarin weli waajibkii ma fulinin weli wixii alla kuu diray oo aad diyaarka u ahayd abaalgudka fiican lagugu siinaayey weli lama gaarin sidaa darteed baa 2 rakacadood rasuulka uu ku tilmaamay inay ka khayr badan yihiin adduunkii waxa kor saaran dad caqli leh aan noqono caaqil waa man daana nafsa qofka naftiisa xisaaba wa caamila lima bacda almowt geeri ka gadaalna u shaqaysta dhimasho ka gadaal wixii la heli lahaa waa ninka u shaqaysta aroos ka gadaal waxaan helin baan u shaqaysanaa safar ka gadaal waxaan helin baan u shaqaysanaa laakiin caaqil waa kee wa camila lima bacda almowt geeri ka gadaal wuxuu heli lahaa oo janno ah oo raadihasho ilaahay ah oo naxariis alla ah oo ridwaan ilaahay ah oo duco malaa'ig ah oo salaan malaa'ig ah waxaasoo dhan buu u shaqaystaa axmaq iyo doqon waa qof allaala qofka nafsadiisa hawadeeda raaca watamanna cala allah alamaani iska yididilsada 40 ma gaarin buu leeyahay maxaa masaajidka ka gala war 40 meeqaan gaarno god ku hooyatay walaalaya war meeqaan 30 gaarin oo la aasay war meeqaan 20 aan gaarin oo dhintay war meeqa caloosha ku soo dhimatayoo nafba aan banaanka la soo bixin ilaahay ma arkin miya aayadihiisa faminkum man yutawaffa min qabl waxaaba jiraba qof ashuddi shuyuuqa soo gaarin la oofsanaayo wa minkum man yuraddu ila
ardal الcumr saasay dadku u kala qaybsamaan. rasuulka sala allahu calayh wasalam maalin maalmaha ka mida derin buu ku seexday. rasuulka derinta firaash uma saarna, salli uma saarna, go uma saarna. suu u jiifaa markuu soo kacay waxay ku sawirantay gacantiisa iyo garabkiisa. waayo cawda markaad ku seexato wax kaa xiga aysan jirin waa ku dhaawacaysaa, waa kugu sawirmaysaa. cumara arkay radia allahu canhu rasuulka xaaladuu ku sugan yahay iyo sida xaaladiisu ay tahay. cumar waa ooyey radia allahu canhu. cumar wuxuu ka oynayaa xayaatada nebiga ku jiro, wuxuu ka oynayaa derinta salliga ah ee wax loo saaro aysan jirin, wuxuu ka oynayaa nebiga gacantiisay u barartay. rasuulkii allow faris iyo ruum waa kufaar gaala ah, waxay ku seexdaan usbuunyooyin, waxay ku seexdaan imtiqaana witaa, waxay ku seexdaan derin qiimo badan, waxay ku seexdaan firaash aad iyo aad u qiimo badan. kuuma weynin rasuulkii allow, aan kuu samayno. saxaabadiisaa ku dhahday nebiga sala allahu calayh wasalam, maa lii walidunyaa buu ugu jawaabay, war anii adduun maxaa isku nahay? ani io adduun maxaan isku nahay? maa lii walidunyaa, ani io adduun miskuma nihin ilaa ka raakib istadalla taxta shajar uma raaxa wadahab ama watarag. waxaan nahay nin socoto ah, nin koyta ah, nin musaafir ah, geed hoostiisa soo maray, wax yar fadhiistoo ku harsaday, kadibna ka rawaxay. intaas waa ani adduun buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam. haddaan adduunkii jeclaanay maantoon aakhiro nacnay, haddaan maanta adduunkii daartaan u malayna daar lagu sugnaanaayo oo daartii aakhiro nala xumaatay, oo qof kastoo annaga naga mida shiiqeena iyo shariifkeena, keena weyn iyo ka yar, ugaaskeena iyo ka kale, dumarkeena iyo ciyaalkeena, kulli adduun la daba orday. aakhiryaanoo waxaa walaalaya tilka daaru alaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada waalcaaqibatu lilmuttaqiin. dadka muttaqiinta ciribta fiican u sugnaatay. daarta aakhira waxaa iska leh jannadaa loola jeedaa. taas daarta aakhira ah najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwa, waa dadkan kor ahaasho arladaa rabin buu dhahay ilah subxaana wa tacaala. nebiga nin saxaabi baa la socday, buurta uxud baa ka hor timid. ma jecli buu dhahay uxud inay ii noqoto dahab. buurtaan aad u jeedaan oo dhan inay intay dahab noqoto igu soo wareegto. haddana hadday dhacdo ma jecli 3 maalmood wax ka badan inay gurigayga ku nagaato, ayuu rasuulku dhahay sala allahu calayh wasalam. ilaa 1 diinaar ama 2 ama 3 aan u kaydsada inaan daynta isaga guda maahane, ilaa naqula inaan ku dhex dhaho addoommada ilaahay maahane, haakada wahaakada wahaakada, macnaha inaan ququbo maahane. muslimiinta dhibaataysan, agoommada, garoobada, waxa xaqaxay, waxa qaxooti ku jira, waxa dhibaataysan, waxa beerka dhulka ku haya, waxa rafaadsan inaan ku dhex qaybiyo maahane. rasuulku wuxuu tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam adduunku waxa looga badbaadi karo sida ay markaa tahay, adduun waxa looga fakan karo iyo xaqiiqdii sida uu yahay, ilaa addoommada alle inaan saa yeela maahane. dadka saa yeelaya way yaryihiin, wa qaliilun maa hum, dadka xaaladooday saa tahay way yaryihiin, aad bay u yaryihiin. alakharuun hum alaqaluuna yowma alqiyaama, dadka xoolaha badan waa dadka ugu ajirka yar maalinta qiyaamo, ilaa qofkii saa yeela maahane. wa qaliilun maa hum, ummadduna way ku yaryihiin. alhaakum takaathur xataa zurtum lmaqaabir iyo rasuulku akhriyey. yaquul ibnu aadam maalii maalii, ibni aadam wuxuu leeyahay hantidaydii, xoolahaygii, dukaankaygii, dahabkaygii. war xoolahaada ma ku leedahay dhar aad xiratood baabi'isa maahane? ma ku leedahay raashin aad cuntood dhammaysa maahane? mase waxaad sadaqaysatood ilaahay agtiisa dhigato subxaana wa tacaala? intaa mee wax kala leedahay. waxna waad cuntay oo waa dhammaysay, waxna waad labisatay oo korkaagu ku go'go'ay, waxna waad sadaqaysatay oo alle hortiisaad u hormarsatay subxaana wa tacaala. sadaqada waa nagu adag tahay, sadaqadu waa nagu dhib badan tahay, sadaqadu waxaan ka xignaa geeri, sadaqadu waxaan ka xignaa waxyaabo badan. inta xooluhu bixi lahaayeen inuu asagu bukoodu qofku jeclaanaya. xaaladaa maxaa dhacay? ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala, faammaa man طagaa وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى قف كستا أو كع أو انتقانا حد قدبة فأما من طغى واكي قوقو كبرى أمرك الذي ذا طاعة ألا كسعن وايا صلاة ألا كري وايو كبر يسلويني أدونك كمرة موذ أمدن أصلا كسر يججبين كرو حنتي إلى سياد درتين إلى طغيانك إيا كبرك معوكو ماذا صلدرت إناد هشو أمين لا يحولك سيو إلهي واكه الله سبحانه وتعالى وحوت المامي مركو إقرار نوت المامي إلهي وحوت المامي الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى إنسانك وكبر بدنيه وقوق بدنيه وانتقانا وحولي ماذا حد قذب وقرمي الرآه استغنى ومركو الله وشيرين اسكو أركو ومركو استغني ديختوني اسكو أركو كي ما أهبا كيكو سلام جري معها كيكو شحاد جري معها كيكو إيمان جري معها كي مقايد مركب كشكاس ودبجلي جري إيكو أكفريسن جري إيكو سلام جري ما بأهم با إن الإنسان لا يطغى وقرمي أن رآه استغنى ومركو ديختومه ومركو حسكو أركو ومركو حوليشو كل هذا مايو وكبرى سنكو تاجا الدرو تماما وعكو أركا إنه كسر ريو شلي وكهر إيماني ما تسوي كارو منايا أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة إلى حق صلى الله نقنا مؤجمية ورحولان قفوا لنا شيء ملها قفوا البو أنك نجمده على وش هاي ما أنتو كبحي جميع ساسي الله بناين وحبا موذنين شيرن آتيستي ملها إنسانكو هفيريا ولا ليال هؤلاء وحي لغا خلقي بو يريد سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق بيبو ذا لغا خلقي بيان حقيرها لغا خلقي سيدة إلهي آيات كلا وكتل مامي ألم نخلقكم من ماء مهين ورسو بيا حقير إذن كما أبورين مهين محال لوغو بيحي بيها مرضو من شيء جاران قفكو إنو اسكت قمئه مقالذكو مآذي كرو شرف دراديدا قيمة اللي ذا سيدا أي تهي كاسات كتمت كاسات سعتا كاسات كسو أسكنتي ربنا كاقلقي سبحانه وتعالى مركز حوقي يشتي صلاة الدكو ما أضاء يقولوا كوكو جوابا كوكو ملا هلاك والله أمرا والإلهي عبسي إله وعن عسوسي أدون كوكو نعبناي ضد إله هذا ما أنت أدون كجوغا ومدى وحان كوكو نعبهاي قفك إلهي كعبسي إله هذا مر الله لمركو حمان كسي نحجرو ما أولا سيجرتها دانا إلهي وحوت الماما يا ألم نخلقكم من ماء معين فجعلناه في قرار مكين بوس لإلالي بانو يلني مكان قرار أهو لإلالي إلى قدر معلوم إلا قدر لا يقانا لقاره وقدر كولادته وإنت قفك أغلانايو وصقاك بلوت أي هو يعنق على شكو حيثو إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون هذا إلهي أغان ويسان ويل يومئذ للمكذبين هلاك بقى ما لنت آقره انت بين سوء السقناضي إلهي ساسو تلماميا أيضا كلا يخرج إلى وحوك أبور من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وعكسب عن كالحمهويو يدبر آبدي إنه على رجعه لقادر إلهينا إنه سوعليو إنسان كمركو بابا عرأي الله فالنقضنا إلهي وكاركرا سبحانه وتعالى أيضا كلمعيت المامين كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أما إنسانك وحو إلهي كتل مامي سبحانه وتعالى ما أكفره مع كفر بدنيسيي من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شانشره سيد إلهي تلمامي سبحانه وتعالى والإنسان كهفهمه والإنسان كهقرته والإلهي كعبس مع قرآن كله قسوع العلينا والمركز والذين عذابا هدات اللعب بذي ويسان مع قرآن كله قبذي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون انت إني عبس ذنبودا إلى سبحانه وتعالى وحا انت عذاب لوغا شاكينا أو نارنا لوغا ورميا أو أمد لها لاقنا لوغو شاكينا أو ضد إلهي انت إنكرين دولك اللي لقوين اللي لشيغا يا وعي تهي انت إنا عبسانه قرآن بانكوسو الدجيني أيو يري الله سبحانه وتعالى لقد عربية مركاء وصرفنا فيه من الوعيد قودي بانكوسو العليني لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى وإني ونقاتانو ذكر عصب أوسو جيسمو ساسان أقو تلقلني واللس وعذيا
waxbaa la isku sheegaa intaa xusuus baa loola jeedaa waxaan caawo dhan sheegaynay qofaan garanayn ma laha qof kastoo meesha fadhiyo nagamida wuu yaqaanaa laakiin wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin mu'miniintu way anfacaysaa iimaanku wuu ku jididsamayaa waxaad noqonaysaa qof ilaahay u soo intibaaha gaflada iyo ilowshaad ku jirto waad ka soo noqonaysaa fadakir bilqur'aan man yakhaafu waciid qur'aanka kuwaani buu dhahay ilaahay qofka waciidka ka cabsanaya hanjabaadda ka cabsanaya goodiga ka cabsanaya kuwaani oo u sheeg oo waxyaabahaasoo dhan u tilmaan xaaladaasu ilaah noo tilmaamaa subxaana wa tacaala walaalayaal adduun baan joognaa adduunka inta aan joogno aan isfahamno oo aan garano war meeshaan meel lagu sugnaanaya ma aha war meeshaan meel la joogaya ma aha hantidan iyo xoolahan maanta aad ku dadaalayso oo laga yaabo inaad meel xundan ka kasabtay laga yaabo inay diinta alla ku seejiyaan laga yaabo intii aan meeshaan nimid oo aan suuqaa galnay hal mar inaan kitaab qur-aana furin waa macquul waayo subaxiina sida ximaarkaan u shaqaynaa habeenkiina sida kilaabtaan u jiifnaa looguma talagelin waxay ahaayeen fursaaniin dadkii hore maalintii habeenkiina ruhbaanin bay ahaayeen oo waxay ahaayeen dad ilaahay caabuda subxaana wa tacaala magaalada madiina habeenkii saqdhex marka la gaaro shinni inay qaylinaysaad moodaa mid kasta gurigiisu ka istaaga ka qur'aan buu akhrinayaa ka waa sujuudaya ka waa ooynaya kan ilaahay buu baryayaa shilimaadkan qabrina lala gelin maayo waxaan aan tabcayno raadinayno waxay kuugu dambaysaa maalinta xanuunka ku soo koro maalinta xanuunka kuu yimaado maalinta xanuunka sakaraadka kuu yimaado maalinta geeridu kuu timaado maalintaasay kaaga dhammaatay jeebkaagay baaraysaa xaaskaaga haddii lacagay ku jirtay waa xaasinimo meesha ugu dambaysa xataa waxyaabaha ay nagu samaynayaan markaan sakaraad gaarno hadduusan ilaahay noo maciinin wallaahi hadduu ilahay wax noo tarin qof wax noo tarayaa ma jiro war haddii saacaddii lagaa furay war haddii jeebkaagii wixii ku jira laga bixiyey war furii baabuurka haddii lagaa saaray maxaa noo dhiman waxaa leen noo dhiman inaan ilaahay u laabano subxaana wa tacaala waxa janno aan ku gaari karno inaan maanta kasbano ummaddan waxay noo qabanayaan malaha ilmahan waxay noo anfacayaan malaha xaasaskan aan 24 saac ayagu ordayno oo ay naga rabaan wax allaale waxay u baahan yihiin xaaraan iyo xaaraan wixii lagu keenaba wallahi meelay nagu sheegayaan malaha ayadoo hadday dhimato dhegedhegaha laga furaya ayadaa tabcatee halkaa yariiska xataa u xira weligiin ma maqasheen waa maya sariirta ha ku dhaqine dhulka ku dhaqa ayadaa kasbatay ayadaa shaqaysatay maxram la'aan bay jayna aaday yay bangkok aaday yay dubay aaday safar xaaraam oo maxram aan la socon waxaanay kasbatay aaway waxeedii aaway wixii ilaahay subxaana wa tacaala siiyey maxay wax ugu anfici waayeen afara'ayta in mattacnaahum siniin uma jaa'ahum maa kaanuu yuucaduun ma aghnaa canhu maa kaanuu yumattacuun ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala ka warrama haddaan dhowr sano u raaxayno lacag la siiyo dolar la siiyo awlaad la siiyo caafimaad la siiyo in mattacnaahum siniin uma jaa'ahum ما كانوا يوعدون وحي الله بلن قاضي السكرات ويمادو نيشا اي كرفانيسو نيشا او كرفانايو اوسن هدلي كرين اوسن كسو فيرين كرين اوسن واباهانا كدهي كرين اوسن ايغدا كدهي كرين بعدما ساس اي تهي وحنا انفعي وان فهمنا وحا الهي اكتيس خيركي وناغا انكو هلينا وان فهمنا وان قرنا حالدها سودن خيري وناغ با لغو غارا نبا رسولك او يمد او يري يا رسول الله وانكو جعلهي اي غورمي قيام اي saacada qiyaamaha goormay saacada qiyaama dhacaysa su'aashaas markaa weydiiyay war saacad qiyaama ma sahlana يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق سيد إلهي تلمامي سبحانه وتعالى إلهي وحو تلمامي إلهي وحو نوشيغ يا سبحانه وتعالى حدي لقارة ساعد قيامه إني معناها انت لقارين إني دك سيد البام ددك عن رميسنين يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها من رميسنا وفي القرآن كنت المامي متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قرمي ساعد قيامة دعيسا دارون شيغيسان ساسي ليه جرين وحو إلهي تلمامي سبحانه وتعالى ددك مالنت قيامه إن ساعد قيامة عن رميسنين أو عن ربين إني كسعظان
oy camalkeeda qabtaan inay yihiin dadka dhah yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaaha, goormee la soo diraya? qul inamaa cilmuhaa cinda rabbii laa yujalliiha liwaqtiha ilaa hu, ilaahay mooye qof kaloo caddayn kara ma jirto. haqulat fi samaawaat, dadka cirka joog way ku cuslaatay, arlada dadka joog way ku cuslaatay, ma timaada ilaa bakti iyo kada maahane. yas'aluunaka kaannaka xafiyun, siday qof yaqaan bay ku weydiinayaan, ee waxaad dhahdaa ilaahay baa yaqaan subxaana wa tacaala. yastacjilu biha aladiin, waxaa degdegsiya dalba kuwan rumaysnayn. aawa dadka rumaysnaa waaladiina aamanuu mushfiquuna min, way ka cabsanayaanba, waxay isleeyihin ama idinku dhacdaa idinkoon diyaar ahayn, fusaqada idinkoo ku dhex jira ama idinku dhacdaa, idinkoo sigaar cabaa ama idinku dhacdaa, idinkoo qayilaya ama idinku dhacdaa, idinkoo qafkiina wax ku jira ama idinku dhacdaa. markaasay xumaan oo dhan ka fogaanayaan oo ay diinta raacayaan oo ay xaaraanta ka tegayaan. waaladiina aamanuu mushfiquuna minha, maxay uga cabsanayaan? wayaclamuuna annaha alxaq, waxay ogyihin inay xaq tahay. alaa ina aladiina yumaaruuna fi saaca lafii dalaalin baciid, kuwa saacadda qiyaamo inkirsan oo diidan baadi bay ku jiraan buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayaa marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu wax badan noo tilmaamaya, wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala nagu tirtirsiinayaa adduunkan inaan iska jirno, adduunkan inaan ogaano, adduunkan xaqirnimadiisa, liidnaantiisa, daciiftinimadiisa inaan ogaano. wuxuu tilmaamay nin shaacir ah oo aad iyo aad u qiimo badnaa, adduunka asagoo cabiraya oo tilmaamaya iyo ummadda ku dhex sugan. ilaahay wuxuu leeyahay cibaadan fatuna, addoommo oo dhugmo leh, addoommo garaad leh, addoommo caaqiliin ah, addoommo ilaahay yaqaano caqli alla siiye subxaana wa tacaala. fadunin waayo way baraarugsan yihiin. maxay sameeyeen? talaqu dunyaa, adduunkay sii daayeen, adduunkao dhan way talaaqeen. waxay ka cabseen fitnadeeda, waxay ogaadeen adduunka oo dhan inuu la mid yahay durdur, macnaha webi biyo ah oo ay dooni saaran tahay. markaasay adduunka waxay u arkeen nin nool inuusan waddan u ahayn, meel lagu noolaada inaysan ahayn. jacaluuha lujah, waxay ka dhigeen durdur oo kale. saalix alacmaal iyo camalka fiicanna doontii ay ku gudbi lahaayeen ayay ka dhigteen buu yidhi, adduunka lagu badbaadi lahaa. war adduunku aad iyo aad buu noo dhibay walaalayaal. addunyaa malcuun wamalcuunun maa fiiha, waa lacanadan yahay, waxa ku dhex suganna way lacanadan yihiin buu dhahay nebiga. ilaa caaliman aw mutacalim, iyo wixii hoos yimaada maahane. war qof cilmi diineed dadka barahaya iyo qof cilmi diineed baranaya iyo wixii la halmaaliya dikri ilaahay maahane, waxa kale xaggee ka keenteen? waxa kale xaggeyna gaarsiiyeen? kii la dhalay maalintuu qaangaaray wax adduun raadiskii u bilaabay ilaa hadduu ku jiraa, ilaa hadduu ku dhex sugan yahay. maaragtay qofdha adduunku waa dhameeyey biswaani, adduun wax kaloo aan ka raba ma laha. maalinta dirham ziyaadaha wa ziyaadaa, maalintuu tukaan furtuu ku labaad raadiyaa, maalintuu gaari iibsoo ku kala raadiyaa, maalintuu xaas guursoo tu kala rabaa. adduunka xaalkiisu waa sidaa, ma laga dhergo, waa layska xakameeyaa walaalayaal, waa layska ilaaliyaa. haddaadan iska qabanin waxa waaye meel xun buu ku ridayaa. haddaadan iska ilaalinin oo aadan ka feejignaanin dhibaatuu kugu sallidayaa. haddaadan rabbi ka baryin inuu kaa ilaaliyo fitantiisa waa ku dhexdhexaysaa. sidaa darteed buu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam, ibni aadam haddii la siiyo tug iyo waadi dahab ah, wuxuu jeclaysanaa inay laba u noqdaan, laba inay noqdaan. laba haddii la siiyo afar buu jeclaanayaa, afar haddii looga dhigo 8 buu rabaa. xaggee u soconaa marka? waayahe bani aadam jawfkiisa iyo xabadkiisa ma buuxiyo ilaa turaab maahane. maxaa loola jeedaa? ilaa markuu dhinto oo dhardhaarta lagu qaado oo dhulka la geliyo oy dadku badiilka soo qaataan oo carada lagu shubo, maalintaasuu kaa aamusaya, maalintaasuu adduunka joogsanaya. inta kale soo maaha qofkuusan ilaahay ka badbaadinin fitantaasuu ku jiraa. xaaraan ku hel, xaaraan xalaal ku hel, riba ha ahaato, maxay galayaala maanta? wax kobcaa la rabaa keliya, wax bataa la rabaa, wax jeeb lagu shubtaa la rabaa. walaala thaqiilka iska yarayno. culayska maalinta qiyaamaha qof kasta waxii saaran ama dhabarka uu ku qaadayaa waa wax allaala wixii dembi ah ee marka uu kasbaday, waa wixii xaaraam ah ee uu kasbaday, waa wixii hanti imtixaana dhacitaan ah oo ilaahay raali uusan ka ahayn oo qofku marka uu qaado. ninkii rasuulka u yimid wuxuu yidhi, rasuulkii ilaahayow goormay saacadda qiyaama dhacaysaa? maxaad u diyaarsatay ayuu yidhi rasuulka sal allahu calayh wasalam. maxaad u diyaarsatay? camal fiican ma diyaarsan buu yidhi, mana u diyaarsan wax kale, ilaahay iyo rasuulkiisaan jeclahay.
sallallahu alayhi wasallam. labada xalad baan ku jiraa. ilaahayna waa jeclahay, rasuulkiisana waa jeclahay. waxa la raadinaya intaasay ahaayeen walaalayaal. ilaahay jaceylkiisa iyo raadi ahaashadiisa noo dambayso. horta maxaan helaynaa? horta maxaan faa'iido ah maanta? horta maxaan kasbanay maanta? horta maxaa la iibiyey maanta? raadi ahaasho ilaahay ma lagu iibiyey? ma jirto. weligiis yuu raali noqon subxaana wa tacaala. qof raadinaya maanta raali ahaasho ilaahay waa nagu yaryahay, qalla maa yuujad. sidaa darteed ayaa waxaa la gaari doonaa suu rasuulku tilmaamay zaman dadku aysan u kala aabayeeli doonin awa min xalaal awa min xaraam. waxaan xalaal miya mise xaraam waa? xalaal miya horta mise waa xaaraam? ma jirto. waxaa la isweydiinay doonaa aakhir haddii la tago. waxaa la isweydiin doonaa markuu sakaraadku yimaado. horta gacanta ha soo gasho, horta ha la helo, horta ha la faa'iido, horta bangiga ha la geeyo. saa darteed baa dhac iyo dil iyo wax kasta waxaa nagu salliday waa raadi ahaasho ilaahay. raadin la'aanta aan ku socono, xaaladaan iska joojino. kun fi dunya, war adduunka ku ahow kaannaka gariib, sidii musaafir oo kale. war musaafir noqo, war meeshaan adi melihid, war meeshaan meel aad ku sugnaanaysa ma aha. daartaan daar aad ku nagaanaysa ma aha. daartaan daar laysku dhaafaya ma aha. daartaan daar aad weligaa joogaysid ma aha. waylun likulli humazatin lumaza, waxaa weeg u sugnaaday iyo halaag mid kastoo xam badan buu dhahay subxaana wa tacaala. lumas ah oo dadka dura, dadka ceebeeya. yaxsabu anna maalahu akhlada, mooday inuu maalkiisa ku waaraayo, inuu xoolihiisa ku waaraayo. wallaahi dadka gobol ka mida markaad fiiriso waxyaabaha ay haystaan baad moodaa in adduunka kula waarayaan, in adduunka lagula joogaayo, in adduunka aan looga qaadaynin waxay markaa haystaan. ilaah muxuu yidhi yaxsabu anna maalahu akhlada kallaa layunbadanna fi lxutama. maya xutamaan ku tuuri doonaa. xutamo maxaa loola jeedaa? macnaha xutamo waa burburiso, waa midda wax baabi'isa, wax burburisa, wax dhibaataysa. xutamaan ku tuuri doonaa. suu adduunka u burburiyey macaasiyo xumaan ugu sameeyey yaa xutamo inta lagu tuuro ayaduna ay baabi'in doontaa sida ilaahay tilmaamaayo. kallaa layunbadanna fi lxutama. wamaa adraaka ma lxutama? ma taqaanin xutamo maxay tahay? xutamo xaaladeedu waa maxay? naarullah, ilaahay naartiisii waay. maxaa u dheer? almuuqada, waa la huriyey, way shidan tahay, waa la huriyaa habeen iyo maalin. rasuulka habeenkii la dheelmiyey muxuu yidhi? waxaan soo arkay buu yidhi nin aan weligii qoslayn oo aan weligii hadlaynin. mar allaala markaad fiirisa kariih ay tahay aadamadiisii aragtidiisa dadku ay ka cabsanayaan. dab ayaa agtiisa yaala, waa hurinayaa, markaasuu ku wareegayaa, waa holcinayaa, waa ku wareegayaa. mar allaala markaan weydiiyey jibriilna waxaa laygu yidhi waa maalik, waa khaasin jahannam, waa jahannamo keyd hayaheeda, waa kayd hayihii jahannamo. maa hurinayaa, maantao dhan wuu shidayaa. waida aljaxiimu sucirat, jahannamo waa la hurin buu dhaha ilah subxana wa tacaala. iyo jaxiimo waa la hurinayaa. sababta loo shidayo maxay tahay? islaanta muufada dubtaa, tanaarka ay wax ku dubayso, cabbaar mar allaala markay dhowr muufa ku dhajiso, intay soo qabato dabqaadkay saa ugu walaaqdaa waxoogaa dabka. waa inuu sii huraa, waa inay muufadu si fiican u dubataa. maxaa jahannamo loo hurinayaa? maxaa jaxiimo loo hurinayaa? cusaadii ilaahay diiday inay ku cadaabmaan, inay ku gubtaan, in dheecaankoodu ku daato. saasaa loogu talagalay. waida aljaxiimu sucirat buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. xilligaa marka la gaaro jahannamaa la hurinayaa, si fiican baa loo shidayaa. cusaadii baa u timid, waxay gelayaan dadkii loogu talagalay. maalintaa intaan la gaarin adduunka qariib aan ku noqono, musaafir aan ku ahaano walaalayaal. yaanan u iilanin, yaan xaggeeda aadin, yaan xaggeeda u weecanin, yaan xaggeeda jeclaanin, yaan xaggeeda la dhumtaqala la dhex fadhiisanin. qofku waxaa loo baahan yahay aakhirana inuu gacantiisa midigtaa ku qabsado, adduunkana gacanta bidixda ah inuu markaa ku qabsado. gacantii bidixda waa ku qabanay, tii midigta waa ku darnay, ilkahaan ku haynaa, lugihii baa lagu daray, qalbigii waa la geliyey. annagoo dhamma dad adduunyad baan noqonay. rasuulkuna muxuu dhihi jiray allaahuma laa tajcal iddunya akbara hammina. ilaahu adduunkan ha ka dhigin hamigeena kan u weyn. hamigaa kan weyn hadduu ka noqdo waa ku dhammaatay. yaclamuuna daahiran baa nagu dhurmowday oo min alxayaati dunya. waxay yaqaaniin ta muuqatee adduunka ah. sida loo kasbado waa naqaanaa, sida loo ganacsado waa naqaanaa, sida wax loo kala siyaasaya waa naqaanaa, sida wax loo kala qisho waa naqaanaa, sida istiikarada looga kala bedelo waa naqaanaa, sida wax loo qabeeyo waa naqaanaa. salaad ma naqaano, qur-aan ma naqaano, axkaam ma naqaano, soon ma naqaano, tawxiid ma naqaano. ka warrama walaalayaal, wax ay yaqaanaan maluu dhaha ilaah subxaana wa tacaala.
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تنيقانين وهم عن الآخرة هم غافلون آخر غافلين بيكيين ما بأوغا بإن جريسي إن كلم ما أوغا هدو أوغان لها ها أوغا إني آخر جرته لكن حقيقة دو أوغان لها xumaantuu ka tegi lahaa alluu caabudi lahaa salaaduu ilaalin lahaa adduunkuu musaafir ku noqon lahaa xalaal iyo xaaraan markay isu yimaadaan xaaraantuu ka tegi lahaa xalaashuu qaadan lahaa nadiifnimuu u ganacsan lahaa nadiifnimuu u shaqaysan lahaa khayr iyo wanaagga alluu dalbi lahaa maalintuu way wuu sabri lahaa maalintuu helna ilaahu ku mahadin lahaa subxaana wa tacaala laakiin maalintan weynana see lagu heli karaa iyo xaaraan iyo been iyo waxaan jirin baa ku raadinaa maalintan helnana kibir iyo aflagaado iyo isla weyni ayaan markaa ku jirnaa loguma talagelin qof adduunka qariib ku ah qofka adduunka qariibka ku ah oo musaafirka kale ku ah nin baa lagu yaqaan Cabdullaahi sida uu sameeyo kale lagu yaqaan wuxuu u qaataa noloshiisa geeridiisa wuxuu u qaataa intaqaana noloshiisa geeridiisa ay caafimaadkiisana wuxuu u qaataa xanuunkiisa oo waa dadaala rabbi buu ka cabsadaa intaan la cajizin oo adduunka lagaa duuduubin ama adi lagaa kaxaynin cibaadadaa lagu dadaalo ilaahay diintiisa lagu dadaalo saaya la qaato walaalayaal culayskan adduunka intaan iska yarayno aan culayska aakhira badsano markay wax helaan baa la yidhi waxaan u hormarsan jirnay daarta horay dhihi jireen meesha loo socdo waa caqabo buuraa la korayaa qof wax culus wadana buurta ma kori karo sidaa darteed baan faqiilka iska yaraynaa saasay dhihi jireen saxaabada iyo dadkii salafkee markaa horay u tagay adduunku maalintuu gurigooda soo galana musiibo inay soo gashaad moodaa maalintay wax badan siyaadsadaan way oon jireen qaar baa inaan laahiyeysan jiray maalintay dhaaftay ka tagto oy adduunku dhaaftana way farxi jireen maalintii hal salaad ay ka daahan way oon jireen way isku tacsiyeyn jireen maalintay salaadna dhaafta waa qosolnaa beri baan ku darayaa wala cishaa dab baan ku darayaa waa waxaan maanta samayno hadduu canuga dukaanka furaha haayo wax yar uu soo daaho maalinta weyl baa iyo halaagiisii malagiisaa galay sida loogu qaylinayo dhibaatada la gaarsiinayo meeshaan adduun iyo aakhira kala taaganaa fiiriya marka meeshaan adduun iyo aakhira kala joogna fiiriya waa la adimayaa salaadii duurka hadhow casir ku darayaa maalintii wax laga soo daaho ama wax lagu iibiyana sidii wax mataqaana musiibo ku dhacday oo kale yaad marka u hadlaysaa xaaladii aysan dhicin walaalayaal nin dadkii hore kamid aha beer uu lahaa aaday beertii wuu ku soo daahay markaasaa takbiirtii ihraamka dhaaftay ma aha salaadii allahu akbarta hore ee iimaanka dhaaftay beertii oo dhanba waa la sadaqeeyeyba maxayba iiga mashquulisaa aakhira la gaar heerkaasaa la gaarsiisnaa dadku cayaar jana looguma bishaarayn ayagoo sariirahooda jiifa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayado loogu bishaaraynayo ciyaar in loogu soo dejiyaa umoodina saan aan ku socono kuma socon jirin xaaraantaan raadinayna ma raadin jirin fisqiga iyo zinada aan habeen kasta raadinayna ma raadin jirin khayrkii wanaagay ku dadaali jireen tasbiixda ahayd waxay ku sheekaystaan dikriga alluu ahaa waxay ku macaansadaan waxay qalbiga ku dejiyaan aayaadka alluu ahaa khamradan qalbiga ku dejinaa markii stresska naga batiyo waxyaabaha kale mijin qaad iyo laba baako sigaar buu doontaa wiilka dhallinyaraha ah gabadhii mar allaala markii ay ka badato waxyaabaha kale maxay samaysaa heeso iyo muusig yaalo iyo dhagaha gashataa intaa waxay la noloshan ku dejinayaa labada qol isku mid ma noqonayaan walaalayaal isku mid ma la ahaanaya waa maya sidaa darteed waxaan ku socono waa qalad waxaan samaynayn waa waxaan raali ilaahay ka ahayn waxaan samaynayn waa wax la isku ciqaabo naxariista allah lagu joogaa maahane wax walba iyo dembi walba oo ciqaab lagu heli karo waa samaynay wax walba qof ilaahay ku ciqaabi karo ama ummadii hore lagu ciqaabay kulli waa samaynay zina haday tahay waxay noo tahay maanta faan lewaad hadduu yahay kasii daran ribo la cuno qof kastoo annaga naga midaa jecel adduun la jeclaado salaad laga tago rabbi la caasiyo wax allaala wixii laisku ciqaabi lahaa oo dhan ama ummado hore lagu ciqaabay dhamaan waa la wada sameeyey xilmi ilaahay aan ku joognaa subxaana wa tacaala dulqaadka ilaahay aan ka faa'iidaysano warinta ciqaabka nagu soo degin dhagxaan aan nala ku soo daadinin qaar baa dhulka lala gooyey fa kullan akhadnaa bidanbihi qof kasta dembigiisi baa lagu qabtay mid qaar baa lagu qeeliye buu dhahay subxaana wa tacaala fa minhum man akhadatu sayxa qaylaa qabatay aw reer thamuud aw markay ilaahay caasiyeen aw markii rasuulkii loo soo diray ay diideen saalixa wali waxay dheen aayadna tusi in kunta min as-saadiqiin hada run sheegayso markaasaa dhul laga soo bixiya hal ayagoo arkaaya hashii baa soo baxday oo la yidhi hal ilaahay waaye iska dhaafa dhib ha gaarsiinina ka taga ayadii waraabkeeda walaa tamassuuha bisuu fayaqudukum cadaab saddex maalmood baa loo qabtay maxay sameeyeen facaqaru naaqa hashii bay qaleen ayagoo u jeeda ayagaa codsaday waa loo soo saaray waa dileen
ilaa muxuu dhahay tamattacuu fii daarikum 3 ayaam 3 maalmood guryiina ku nagaada. mufasiriintu qaar waxay dhahaan maalinta koowaadna way guduuteen, way madoobaadeen, way mutaqaanaa midab kale noqdeen. markaasuu ilaahay u soo diray sayxa. وثمود حسبوا إلى سبحانه وتعالى إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين إلى وقت راحيستا فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. أيقو أركهايا يا أنت جبريل الله صدر له قيليه فما استطاعوا من قيام إلى استاجر حتى وأودي وايين وأودي قيلدي اللي قسم يدرتين واستاجي وايين وما كانوا منتصرين. والله وحيابات إنه عذابك كعرة وسمين واي إنه سوق جرجار أما ولكن أجرجاره تين وادعي ويسي قارن كقيلنا يبود الله سبحانه وتعالى قارن بابيل لقو قرقي أو لقو ماشي أو فرعون معودي جرى أنا ربكم الأعلى كير ماشو كجاري ما علمت لكم من إله غيري إلها أنا إذنكم أوجي مع كدم بينه آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقرقوم يا مركع بيو كل منايا وحو كل حجرا بدي وحو سعد إنه نبي موسى عليه السلام أنت سال وعدي أنت صاح الله شيء أنت صالح فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى وبيني وعسي ثم أدبر يسعى وجزته أرضي فحشر فنادى ومدي بسكسه وعي مكرفا كيبو قبصدي ودواقه وقد بي قطب حما أدونك وحكا قطب فرعون بجرين فقال أنا ربكم الأعلى أنا إله سراه يري فأخذه الله إلهي قبطي سبحانه وتعالى دبك استول اسكو عقابه وأمضي أي قالين ما أنت قعنت الله هايا صاعرين تلاهيال بينويهين ماشا سيفرديان قرية جوغان والله تقع ويلكي دلنيرا ربا إنو قرسدو ساد الله سعطان هايقو تقع ولا ويدية برج ولا ويدية ناكتي ننكي إذا كشكسا إنو ناكل لقاطي أيغا الله تقع waxaasa igu dhacay wax ii qabaan la yiraahdaa ninkaan iga qabeen naagta iga celiya la yiraahdaa soo ilaahay kama dhiganin walaalayaal qof Allah qofkii dahab ka dhumo dumar ah ayagu u taga casirkay tukanaysaa iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in bay leedahay kadib waxay u socotaa sixroole naagka qaxwo fiirisa oday dhulka wax ku dhiga ku tusbax lula qaybna ka hadla kulli ilaahay bay sheegtay subhanahu wa ta'ala walaalayaal aan ilaahay keligii caabudna subhanahu wa ta'ala aan noqono ummad muwaxidiin ah qof الله لقفك أتقبل داي نبيك أو وحويدية أفرت المال مصر لك ما أقبله وأفرت المال موت ناقها دداية الصعدة قاركود جلابيب وتا قاركود درعية وتا قريها صفقة أجرة وحكا لما يشكو مجرو ننفاجر أو إله نمشاكتي غيبك كهد الله أيا جوغة وأن إله يكتي سقيمة كلهين